horta marka hore idinka warbixinaya nabadgelyadii laga waday magaalada Ceergaabo inay gabagaba tahay dhawaana madaxweynuhu uu soo xiri doono wajigii hore meel fiican ay marayso waxaan halkan u soo maanta idinku yimi inaan bogaadiyo nabadda uu madaxweynuhu ka wado gobolka Sanaag oo gobolkayga soo dhaweeyo marka labaadna waxaan rabaa inaan cadeeyo oo aan ummadda u cadeeyo beelihii gobolka wada degi jiray qaar baan hadda meesha iman beeshayda oo kale sababta ay ku maqan tahay oo dadka nin walba meeshu rabo ula kacay dawladdu ma kala reebin madaxweynuhu ma kala reebin laakiin waxaan rabaa inaan cadeeyo sababta kala reebtay marka hore madaxweynuhu gobol buu dhigay gogoshii madaxweynuhu dhigay beesha baran way ka soo jawaabeen laakiin beeshaydu kama jawaabin taasi waa kala reebtay mid labaadna waa kala reebtay oo beeshan haddeer bariga ee haddeer nabadgelyada qaadatay oo aan ku bogaadinayo iyada iyo culayska meesha iyada dhexdeeda ka jiray ma weynin iyaga dawladda iskuma dhicin qabaa'ilkana meesha joogana iskuma dhicin laakiin dhinacaygan dawladda waa isku dhaceen beelaha meesha degan waxba kala gaadhay marka waxaan uga kala way kala fududaayeen oo waxa loo kala horreysiyay sidii ay u kala fududaayeen waa markii saddexaad madaxweynaha haddaan nahay qoliyaha halkaa ka soo jeeda annaga oo tagnay madaxweynaha waqtigan inaanay beeshaydu diyaar ahayn oo ay iyo waayo maadaama iyagu tolkooda u qaxeen ilaa buuhoodle iyo laascaanood bay la hor noqdeen annagaa nidhi waqti ha la siiyo oo nabad guud oo dhammaystiran oo ay tolkood la qabaan ha la raadiyo madaxweynuhu taa nala qaatay waa ku mahadsan waxaan noo rabnaa ilaa buuhoodle ilaa Ceergaabo maadaama ay maanta dee dad isku dadana yihiin isku xeerana yihiin heshiis dhammaystiran oo ay Soomaaliland la galaan baan raadinayna haddii la waayo dadka reer Ceergaabo waxaan u raadinaynaa nabadgelyo aan dalkoodii iyo dadkoodii ku celin hadda aan cadeynaya waan arrintan TV-ga weyni waxaan soo dhaweynayaa oo aan ugu baaqayaa nimanka tolka aanu nahay in la wada hadlo oo la heshiiyo oo wixii jiraba laga wada hadlo haddii ay dhici weydo nabad guud taana waxaan aaminsanahay in la wado oo runtii dhawaan la soo magacaabi doono ciddii Soomaaliland la xaajoon lahayd ee dhinacaas taasaanu ka warsugaynaa haddii ay taasi suurtageli weydo waxaanu ka shaqaynaynaa nabadgelyo reer Sanaag inta hadda baanu dhammaystiri doonaa insha Allah dawladdana nabad baanu ka haynaa dadkii Sanaag deganaa nabad baanu ka haynaa dadkeegana nabad baanu ka haynaa waa isu keenaynaa wajiga laabad bayna noqon doontaa intaas intaa weeye inta kale waxaan maqlayay madaxweyne xasan sheekh baa imanaya Laascaanood arrintaa waa cambaaraynaya cod dheer baan ku cambaaraynaya waxaan leeyahay xasan sheekh 12 sano oo Soomaali madaxweyne u ahaa waxa uu tari waayay reer Laascaanood tari maayo khilaafka maanta la dhex maray dadka iyaga gacalka abu ka faa'iideysanaya iyagana wax tari maayo annana waxna tari maayo warnaga joognaa intaas inta weeye waxaan halkan uga faa'iideysanayaa oo tacsiideynaya abtiga xasan barre xasan oo wiilkiisii maanta Ceergaabo lagu aasay maalin weyn oo ku dhaawacmay meesha la yiraahdo shidan shaqada ku dhintay waxaan leeyahay in kana Allah u naxariisto abtigeena samriyo imaan Allah siiyo nabadgelyada ta hadda la wadana waa bogaadinaya ta dambe iyada wajiga labaad ee reer Sanaagna oo soo dhaweynaya oo la ku xigi doontaa insha Allah taala waa mahadsantii